بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسبوعي هوري برنامج كمرشد المعلم وحنوغا شاكيني شنطة هير اي سو مرتو مركز والبو دوكسي والبو iyo xarun walba oo tacliimi ah waxay kala ahaayeen marxalatul hayaa oo ah markasku inuu jiro laakiin uu wax soo saar badan lahayn marxalatul najaax oo ah inuu qaar kamid ah ahdaaftiisa uu gaaray laakiin wali meel wanaagsan una gaarin marxalada ku sii xigto oo ah marxalatul tamayuz oo ah inuu ka socmo maraakista ay isku nooc yihiin ama ay isku wax ka shaqeeyaan marxalada afraad oo ah marxalatul riyaada oo ah horyaal inuu noqdo markasku wadankiisa maraakista ugu horeyso hogaamisan oo ku biiro marxalada shanaad oo ah marxalad alqiyaada oo inuu hogaamiye uu noqdo caalamka oo dhan ay xiiseeyaan inay ka faa'iideystaan tajribadiisa inay jilaan hadii la yiraahdo markas fiican ayaan u baahanahay oo ku dayanana asaga la soo aada caalamiyan meel walba dadku kala joogaanba waxaan ballan qaadnay maalin dhaweyd inaan ka sheekeynayno shuruuda laga rabo maraakista iyo madaarista iyo dugsi quraanada doonayo inay gaaraan marxalatu tamayuz iyo marxalat ar-riyaada iyo marxalatu al-qiyaada oo ah saddexda heer ee ugu sareyso maraxisha ay soo maraan dugsiyadu madrasada ama markaskaada haddaad doonaysid inuu noqdo markas mutamayiz ah ama markas raa'id ah ama markas qaa'id ah oo caalamka ooga tago raad lagu xuso waa in laga helo markaskaada 5 shardi shuruudaas waxa ugu horeeyo idaaratun waa'iyatun wa munadhama markaska xarunta ama dugsigu waa inuu leeyahay maamul wacyi leh oo nidaamsan oo qorshe ku socdo qodobka labaad waa inuu leeyahay macallimiin kafaa leh muallim dhu kafaa wa risala أما معلمين أما معلم له كفاءة علمية حاجة قرآن كودجة هنقطة حاجة علمية يو قابك وحلا تربية ذيو يسيدو كلاته إنه يهين معلمين تاسي معلمين حنبارسان رسالة أو سيدي أنكسر شاكيني قرآن كديستي سوين الشغاكة هينه رسالة وين يجودنا يعني كتاه قضب كسدحات وحوي مدرسة إنه لا ده منهج متوازن أما اسكو ديلي تيران أو حديدا أو سيفي عن لوغا شقيي قابك وحلو برانايو حلقة لبرانايو وحالا برانايو انت باكو سابسان قضبك أفراد وحاوي إني مدرسة لادهاي مخرجات قوية أو هدي أردقة لا أركو إن لا شيغي كارو أو لا تلمامي كارو أو لا ديه كارو أردقة كاني وحو كسو قلين جبيه مدرسة هبل وحاد كقرانيسا فرتا سوء يقانو وحاد كقرانيسا نطقيسا waxaad ka garanaysaa quraanka suu xifdisan yahay iyo akhlaaqdiisa qodobka ugu dambeeyo waa madrasadu inay leedahay bi'atun nadiifatun wajadiba bi'o nadiif ah oo soo jiidasho leh ayna ahayn meel muuqaalkeedu uu foolxun yahay shardi ma aha dabaq weyn inay leedahay ee inta ay haysato degan tahay inay qurxisato baa laga wadaa شنطة قضب إن شاء الله تعالى وان كلا دق دونا هل ما أنت وحن كهل دونا إدارة قوية وواعية ومنظمة سي مدرسدو يكون يالن كرتا مامل وعي له أو نظام سن أو إسلام مركا أيضا أهنا هدف كسعود سيدا الله سعوتان سكول دا شركتها يحرمها واوين كلا دوان كوا الدولة دا يكوا برايفت كما وحمام الكود اللو ديبا dad ku soo takhasusay sida wax loo maamulo cilmiga maareynta iyo maamulka soo bartay halka dugsi quraanada iyo maraakista diiniga ah ee aan gacanta ku hayno intooda badan macallimiinta iyo maamulayaasha maamulayo ayna baranin cilmiga idaarada laga yaabo waliba inaynan qaadan koorsooyin ay kor isugu qaadayaan oo wax kaga ogaanayaan cilmiga maamulka haddaba maamulka madaarista quraanka oo ah cilmi balaaran halkan kuma soo koobi karno laakiin xalqadan waxaan oga sheekeynaynaa dhowr qodob oo muhiim u ah oo aan oran karno madrasadii laga helo waa madaraso idaaradeedu ay wanaagsan tahay waa madaraso u socoto in ay gaarto maraaxisha ugu sareeyo ee xagga tafawuqa ah sida marxalada at-tamayuz iyo kuwii ka sii sareeyay
qodobka koobaad ee laga rabo madarasada quraanka nidaamkeeda ama maamulkeeda waxa weeye madarasadu in ay leedahay qorshe cad sida la socotaan iskuuladu waxay leeyihiin qorshe cad waxay leeyihiin calendar darbiga ugu dhagan oo qeexayo maalinka waxbarashada la soo galayo maalinka casharku joogsanayo maalinka imtixaanaadka la qaadayo maalinka la fasaxayo ardayda xafladda qalin jabinta maalinka la qabanayo oo loo kala qaybiyay intaasoo semester dugsiyada quraanka waa in ay ayaguna yeeshaan qorshe noocaas oo kale ah oo cad jadwalka horteena ka muuqdo wuxuu qeexayaa qaabka loogu sameyn karo dugsi quraanka qorshe ama calendar uu ku shaqeynayo oo sanadkii bilihiisa la kala qaybiyay wuxuu qeexayaa sanadkii in loo kala qaybin karo 2 semester loo kala jabin karo oo dugsiga laftiisu uu yeelan karo 2 semester semesterka koobaad oo ka kooban 5 bilood oo 10 la qaadanayo bisha ugu dambayso oo ah bisha 6aad oo ardadu 20 bari ugu horeyso ay qaadan doonaan imtixaan iyo muraajaca 10 bari oo bisha 6aad ugu dambaysana ay ardadu fasax gali doonaan semesterka labaad ardaydu marka inay u soo noqonayaan ayagoo u faraxsan oo u xiisaysan sidii iskuuladaba ay ugu soo xiisi jireen markay soo noqdaan halka uu ka bilaabanayo semesterka labaad oo sagana ka kooban 5 bilood oo waxbarasho ah bisha ugu dambayso oo bisha 6aad ah 20 bari oo ugu horeyso oo ah muraajaco iyo imtixaanaad arday walbana lagu imtixaamo intii uu soo bartay semesterkaas ama fasalkaas uu soo bartay iyo intii ka sii horeysay marka dugsiga loo kala qaybiyo 2 semester ardayda oo dhan waxay galayaan imtixaan 6 biloodba ayagoo lagu imtixaamayo intii ay soo barteen 6 bilood iyo intii ka sii horeysay ay soo baranayeen macallimiintu ay u tartamaan macallimiinta dugsigu ay u tartamaan mid walbo kamid ah inuu ku dadaalo in ardadiisa imtixaan ka markii laga qaado aynan kadib marin madarasada xalqadaheeda kale ama qaybaheeda kaleete ee ay la socdaan ama ay ka kormaraan waxyaabaha laga faa'iidi karo in dugsiga quraanka sida tan loo dhiso waxa kamid ah in qorshuhu uu cad yahay ardadu waxa ay baranayaan iyo waxa laga rabo inay muraajaceeyaan inta cashar ay baranayaan inta kitaab ay xifdinayaan imtixaanaadka si guud waxyaabaha loo sameeyay waxa kamid ah in dadku ay soo diyaariyaan ay wax akhriyaan haddii lagu imtixaamayo book ama kitaab kutubta kamid ah waxa laga yaabaa marar badan inaad akhriso oo isdiyaariso laakiin haddii aan lagu imtixaamaynin mar dambe aad dib u fiirinin xoogaa cilmi dhagooda hadaa ka qaadato inaad taqaano inaad isku malayso halka imtixaan haduu ka dambeeyo aad iyo aad isaga ilaalinayso macallimiinta quraanka ee hal madaraso ka wada mid ah markay og yihiin in ardayda 5 bilood ka dambe nin walba wuxuu soo baray wixii ka sii horeeyay laga rabo in lagu imtixaamo dadaal fara badan ayaa halka ka dhalanaya waxyaabaha muhiimka u ah qorsheynta maamul ee dugsiyada quraanka waxa kamid ah in dugsiga uu u cad yahay oo darbiga uu ugu dhagan yahay qorshaha maalinlaha ah ee saacadaha maalinka sida loo kala qaybinayo qodobada muhiimka ah marka laga hadlayo maamulka dugsiga quraanka waxa kamid ah in madarasadu ay leedahay hadaf ay u cad yihiin dhammaan barnaamijteeda kala duwan xilliga ay bilaabanayaan iyo xilliga ay dhamaanayaan waxyaabaha waalidiintu ay aad iyo aad uga sheeganayaan waayadan dambe waxa kamid ah waxbarasho iska furan oo iska socoto maalin dhaweyd waxaa la kulmay waalid wato caruurtiisii wuxuu ii sheegay dhowr sanadood inuu wax barayay oo dugsiyada uu ku celinayay oo iskuuladii uunan gelinin oo uu hadafkiisu ahaa in ciyaalka quraanka ay xifdiyaan iyo in ay diintii bartaan inta ayna iskuulka gelin oo ku mashquulin laakiin nasiib darro wuxuu ii sheegay inuu ogaado caruurtiisa xitaa inayna juz'ama akhrin karin taasoo tusinayso qorshe xumo waalidiinta inta badan magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida ay degaan haddaad waraysato waxay ka sheekeynayaan in cunugani uu intaasoo sano dhiganayay dugsiga laakiin wali uuna farta aqoonin dugsiga marka waa inuu u xadidan yahay oo uu cad yahay xilliga farbarka ay ardadu bilaabayaan iyo xilliga ay dhamaynayaan meeqa bilood buu ku dhamaadaa meeqa chapter buu ka kooban yahay iyo chapter walbo ama qayb walbo oo kamid ah qaybaha farbarka ama akhrinta inta lagu qaadanayo inta bilood lagu jiray sidoo kale dugsigu waa inuu leeyahay hadaf cad oo ku saabsan xagga ardayda arday walba oo kamid ahna uu og yahay ama madrasadu ay saadaalin karto xilliga quraanka uu dhameynayo warqada horteena ka muuqato waxay cadeynaysaa
waxaa la yidhaahdaa alhadaf ama the target. waa warqadda lagu qeexo ama madrasadu ay ku qoran karto targetka iyo hadafka arday walbo, taasoo aad iyo aad u fududeynayso in ay madrasadu og tahay arday walbo xilliga uu quraanka dhamayn doono iyo markii sanadkan uu dhamaado meesha uu gaari doono. hadday waalidku ku imaadaan ay ku weydiiyaan cunugay goormuu quraanka dhamaynaya, sanadka soo socda halkee buu gaaraya, aad si toos ah uga jawaabi karto. arrintaas waxaa lagu soo saaraa in la og yahay marka hore casharka ardayga uu qaato waa meeqa. hal safxa hadduu yahay lagu dhufto isbuuci inta maro casharka la qaato, kadib bil lagu sii dhufto, kadib 6 bilood ama sanad lagu dhufto, sidaana lagu ogaado ardaygan goorta quraanka uu dhamaynayo, hadduu ilaahay wax dhiba ka hayo iyo haddii uu ardaygu uu dadaalo waalidkiisana ay la soo dadaalaan. maamulahaas ama macalinkaas uu oran karo cunuga kani wuxuu quraanka dhamayn doonaa sanadku markuu intaa yahay, inuu ka soo hormaro way dhacdaa, in wax yar uu ka dib marana way dhacdaa. qodobka kale ee muhiimka u ah maamulka dugsiyada quraanka waxa weeye almutaabaca. mutaabaca macnaheedu waxa weeye in wax la daba galo. maamulaha madrasada quraanka oo runtii aad iyo aad muhiim u ah madraso walbo quraan ah inay maamul leedahay iyo xafiis inay leedahay. dadka qaar waxay u haystaan in madrasada quraanka in xafiis u baahneen, waa meel qol la fariisto macallin oo arday ugu dhiga 10 weeye, maxay tahay waxa maamul looga baahan yahay. madrasada quraanku waa mu'assasad hayso arday fara badan oo waalidiin ay ku xiran yihiin, oo dad badan ay soo booqanayaan oo ay su'aalo weydiinayaan. marka waa inay yeelato maamule. maamulahaas waa inuu raadiyo siduu u baran lahaa cilmiga maamulka. sidoo kale waa inay yeelato xafiis, waa inay yeelato meel dadka ay ku soo dhaweyso hadday suuragal tahay. qodobka muhiimka marka waxa weeye inay jirto mutaabaca oo ah maamule dabagalayo dhammaan qaybaha kala duwan ee madrasadu ka kooban tahay. mutaabacada waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in uu jiro daftarul mutaabaca waxa la yiraahdo, oo ah buug lagu qoro ardayga maalin walba cashirka uu qaatay iyo inta uu muraajaceeyay, hadduu maqnaa iyo hadduu joogay. jadwalka horteena ka muuqdo wuxuu cadaynayaa ama qeexayaa qaab ka mid ah qaababka loo sameeyo daftarul mutaabaca, oo ah in ardayga maalin walba macallinku uu qoro ardayga magaciisa iyo inta uu maalinka ka baxay, iyo sidoo kale taqdiirka mumtaaz miyuu ahaa ama daciif buu ahaa iyo wixii kale oo mulaaxadaada. ardayga qaabkaas maamulka madrasadu marka ay haystaan daftarul mutaabaca oo macallimiinta ku dabagalaan macallin walba inuu qoro arday walba maalin walba cashirka uu qaatay, taasi waxay sameynaysaa qorshe cad oo muuqdo, waalidkana lagu qancin karayo, maamulka madrasaduna ay ku kalsoonaan karaan macallimiintu inay gudanayaan waajibkoodii iyo hawsha sidii la rabay inay ku socoto. hadafkii iyo qorshayaashii ay madrasadu degsatay cunug walbo xilligii laga rabay quraanka inuu dhameeyo ma ku socotaa. waxa lagu garan karo waa mutaabacadaas. sidoo kale waxyaabaha muhiimka u ah maamulka mutaabacada ama dabagalka waxaa ka mid ah in uu jiro alxuduur walghiyaab, oo ah warqadda xaadiriska ardayda lagu xaadiriyo inay imaadeen inay maqnaadeen, taasoo si maalinle ah ay habboon tahay maamuluhu subax walbo in uu ardadu markay soo xaroodaan uu soo kormeero, macallin walbana uu u tago si uu ogaado ardayga maqan, isla markaa ayada ahna waalidkiis uu ula xiriiro. arrinta aad iyo aad muhiimka u ah ku saabsan mutaabacada iyo dabagalka waxa weeye in uu jiro taqwiim, qiimeyn iyo isdabagal inuu jiro, taasoo ah in maamulka madrasadu ay mar walbo dugsiga quraanka inta badan casharadu way iska socdaan, taasoo keenayso in natiijadii inay daciif tahay laga yaabo, khaladkiina lagu sii socdo. taa waxaa lagu daaweyn karaa in maamulka dugsigu uu marmar casharka joojiyo. bishaan oo dhan wax cashar ma jiro, waa muraajaca. arday walba waa inuu muraajaceeyo intii uu soo dhaafay, waa in la hubiyo ardayda say wax u akhrinayaan, waa in la hubiyo waxa ay soo barteen inay hayaan. camal walba oo maamul ah waxaa la yiraahdaa wuxuu soo maraa 3 heer. qorshe cad inuu leeyahay, fulin in qorshahaas la fuliyo, iyo isdabagal inuu jiro, ma fulay qorshihii la dhigtay ama ma fulin. arrimaha aan soo sheegnay oo dhan maamulayaasha dugsiyada quraanka waxaa laga rabaa inay sii raadiyaan, internetka ayay ka baari karaan, dowrooyin ayay raadsan karaan,
dadka cilmiga maamulka ku takhasusay ayay wax ka weydiin karaan inay ku talagalaan inay sameeyaan maamul qiimo leh oo u qalmo dugsiga quraanka weynadiisa iyo cadamadiisa iyo hawsha weyn ay hayaan. halka ayaan kusoo gabagabaynaynaa maanta barnaamijka Murshid al-Muallim oo nooga sheekeynayay maanta waxyaabaha laga rabo maamulka madarasada quraanka kariimka. xalqadaha soo socda hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan kaga hadli doonaa qaybaha kale ee ka dhiman shuruuda laga rabo madaarista quraanka ee haminayso inay meel sare gaaraan. aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhageysigiina. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.